daawadayaal war degdeg ah hogaanka dhaqanka gobolka Awdal ayaa si cad u joojiyay wada shaqayntii ay la lahaayeen wasiirka arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama uu ka baxay xayndaabkii caadiga ahaa. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dhowaan wasiirka arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu sheegay inuu xalliyo khilaafaadkii ka taagnaa magaalada Boorama iyo xaaladii adkaa. War-saxaafadeed ay soo saareen guddida dhaqanka ee beelaha Gudubbuuse ayaa sidan lagu yiri maanta ay taariikhdu tahay 16 bishii labaad 2026 guddida dhaqanka ee beelaha Gudubbuuse waxay jawaab cad oo ku habboon ka bixinayaan war-saxaafadeedkii uu jeediyay wasiirka arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland taariikhdu markay ahayd 14 bishii labaad 2026 guddida dhaqanka ee beelaha Gudubbuuse waxa ay bulshada ay matalaan ee ballaaran iyo guud ahaan ummadda ballaaran ee dalkan degan ay u cadeynayaan in war-saxaafadeedkii uu jeediyay wasiirka arrimaha gudaha uu baalmarsan yahay anshaxaya hanaanka dowladnimo ee looga baahan yahay mas'uul ummadda ugu adeegaya mid ka mid ah kuraasta dalka ugu sarreysa. Wasiirku waxa si cad oo aan gabasho lahayn war-saxaafadeedkiisa uga been sheegay xaaladda colaadeed ee ka taagan gobolada Awdal iyo Salel. Warkiisana waxa uu ku sheegay in ay dhamaatay colaadii ka taagnay deegaanadaasi taasi oo arrin aan sal iyo raad toona lahayn iyadoo aad ogtihiin labadii maalmood ee ugu dambeeyay in ay dhaceen dagaalo toos oo xidhiidh ah. Waxa kale uu sheegay in wasiirku uu baarayo sababta keentay colaadaasi taasi oo aan u aragno in ay tahay maran habaabin uu ku sameynayo ciidii lahayd gardarrada iyo duulaanka qaawan ee lagu soo qaaday deegaamada beelaha Gudubbuuse. Geesta kale wasiirku waxa uu sheegay in aanay jirin cid meel kale ka soo duushay iyo dal kale taa beddelkeedana xuduudu ay xidhan tahay. Arrintaasina waxaanu leenahay waa been cad aanu geedudna ugu soo gaban sababtoo ah waxa la hayaa aqoonsiyadii dadkii ku geeriyooday falaagooyinkii ka soo duulay dalalka dariska waxaanu si cad u cadaynaynaa inuu furan yahay xadkaasi ilaa maalintaas maantana aanu xidhnayn. Wasiirku waxa si cad oo badheedh ah u aflagaadeeyay madax dhaqameedka beelaha Gudubbuuse oo uu ku sheegay dagaaloogayaal nabadda diidan. Arrinta waxaan ka leenahay wasiir waa ka hoostay ee waxaad ilowday in madax dhaqameedka reerku ay yihiin kuwa dhaliyay nabadda iyo quruxda aad wasiirka ku tahay. Ugu dambeyn waxaan bulshada iyo dowladda Soomaaliland u cadaynaynaa in aan si ku meel gaar ah u joojinay wada shaqayntii aan la lahayn wasiirka arrimaha gudaha maadaama uu ka baxay xayndaabkii dowladnimo sidoo kalena uu lumiyay dhexdhexaadnimadii. Waraaqdaasi oo ay ku saxiixanayeen guddiga dhaqanka beelaha Gudubbuuse Adnan Karamo Hagen Media.